kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamij kooban oo gaar ah oo aan ku soo qaadan doono barashada afka Netherlandska. barnaamijka Soomaalida Holland ee halmaal waxaan caawa kaga hadli doonaa inburgering ama sida loola jaan qaadi karo bulsho marka aad la soo degto. waxaa inta badan dhagihiina ku soo dhaca ereye ay ka mid yihiin integratie ama isdhexgalka ummadaha kala duwan ama inburgering cursus in qofka Netherland ku cusub laga doonayo in uu qaato casharo la xidhiidha dalkan Netherland. mana aha hawl yar, waxaana lagama maarmaan ah in aad barato luqadda, dhaqanka iyo caadooyinka Holland si aad isku fahmi kartaan ama aad ula jaan qaadi karto bulshada. waxaa dalkan Netherland lagu qiyaasaa soo galeytiga ama dadka aan u dhalan Netherland ee ajnabiga ah ku dhawaad 3 milyan oo ka kala yimi adduunka dacaladiisa. waxa guud ahaanba ku nool 17 milyan oo ruux. inburgering waxaa haddaba lagu macneeyaa in qofka soo galeetiga ahi ama allochtoon sida loo yaqaano ama newcomer ee ku cusub Holland in uu la qabsado dalka haddii uu degan yahay si uu si habsamiya ugula noolaado dadyowga kala duwan ee dalkan degan isagoo aan loo eegayn qudhiisa asal ahaan halku ka soo jeedo iyo caqiidadiisa. tan iyo sanadkii 2007 waxaa Netherland lagu soo rogay in qofka ku cusub dalka Netherland uu soo maro barnaamij lagu magacaabo inburgering cursus. waa inuu barto waxna ka ogaado luqadda Netherland, dhaqanka, taariikhda iyo guud ahaanba sharciyada iyo sida dalkan Holland loogu nool yahay. inagoo taas ka duulayna waxaan idinku soo bandhigi doonaa barnaamijyo kooban oo aad luqadda ku xoojin kartaan. caawana waxaan idin hayaa dhowr erey oo cusub. ereyga ugu horeeya aan soo qabto waa vluchten, waa qaxitaan ama baxsasho. waa vluchten. Hij is gevlucht uit Somalië. haddaad tidhaa hij is gevlucht uit Somalië, qofkaasi Soomaaliya ayuu ka qaxay weeye. ama hij is gevlucht uit de gevangenis, qofkaasi xabsi ayuu ka soo baxsaday. hij is gevlucht uit de gevangenis. ereyga labaadan caawa soo qaban doonaa waa vrijwilliger. ik ben een vrijwilliger. iskaa wax u qabso ama mutadawac weeye. waa qof iskaa wax u qabso u shaqaynaya. ik ben een vrijwilliger. een vrijwilliger is iemand die werkt zonder geld te verdienen. hij doet gratis. waa qof bilaa lacag ku shaqaynaya isagoo qasti kale ama luqadda ku baranaya ama dana kale ku leh. integreren ayaan soo qabanayaa. ereyga integreren waa la qabsashada dalka aad soo degtay. integrationkii weeye. je leert de Nederlandse taal en werk als vrijwilliger. si aad markaa dalkii ula qabsato waa inaad luqadiina barataa adigoo cid walba kula hadlaya, qofkii kaa soo horbaxaba ku jajabinaya oo ku celinaya hadaladii oo la hadlaya oo su'aalo weydiinaya. waa sida kaliya wax ku baranayso adigoon ka xishoon. shaqooyin markaa bilaa lacaga ama vrijwilligana dadka la qabanaya si aad markaa luqadda ujeedadu ay tahay inaad luqadda unbal horta aad ku barataa. waxaa laga yaabaa in marka hore caqabado badan aad la kulanto, laakiin aakhirka adigaa ka guulaysanaya, waayo haddaad dadaasho ama haddaad mustamirto waad keenaysaa. participatie ereyga participatie, je moet participeren haddii lagu dhahdo. participatie werk ama aad maqasho waa ka qayb qaadasho. als je participeert doe je mee in het land waar je woont. je moet participeren, je moet meedoen baa lagu leeyahay. waa in aad ka qayb qaadataa. je moet naar een participatiewerk. inburgeren ereyga inburgering waxa weeye la jaanqaadidda waddanka aad degan tahay. je moet, als je inburgert leer je veel van Nederland leven. als je je inburgert leer je veel van Nederland leven. autochtoon iyo ereyga allochtoon haddaad maqashaan waa laba erey oo iska soo horjeeda. autochtoon waa qof Netherlandiis ah oo dalkan u dhashay. allochtoonna waa qof waalidkii ay soo galeyti yihiin. autochtoon, ik ben een autochtoon hadduu qofku ku idhaahdo waa qof waddankan markaa dhalada. allochtoonna waa qof soo galeytiya oo asal ahaan ka soo jeeda
dalalka dunida. Cultuur en gewoonten laba erey oo soo noqnoqda iyaguna waxaa jira cultuur en gewoonten waa dhaqanka iyo caadooyinka. Cultuur en gewoonten idinku badin maayo caawa dhowrka erey ayaan ku soo koobayaa luqadana qof aan baran karin ma jiro qof waliba uu baran karaa inaad bilowdo unbaa muhiima oo aanad ka baqin aanad ka xishoon oo aad meel walba ku daydo wixii qaladana waxaa laga yaabaa aakhirka inaad toosiso dhawaqa saxda ana aad hesho dhagahaaga iyo maskaxdaaduna ay barato tan iyo intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin iyo nabadgelyo.